warbaahinada mataanaha ee hoyga diinta iyo shabakatul mutaxaabuun fillah waxay noo suurto gashay inaan waraysi gaar ah la yeelano Sheekh Cabdiqaadir Soomow oo ah hafeenka golaha guud ee culimada Soomaaliyeed degmada Warshaaq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayuu sheekhu uga qayb galayaa siyaarada Sheekh Cabdiraxmaan Cali Sheekh Soomow ku soo dhawow hoyga diinta iyo shabakatul mutaxaabuun fillah masanta waa ku dhawahay shabakada diinta iyo hoyga diinka iyo shabakatul mutaxaabuun labada waa ku dhawaa aad baan ugu faraxsanahay inaad naga ogolaato inaan waraysi ka qaadno waliba adigoo mashquul ah marti badan halkan ay kugu sugayso xaalad mashquul lagu jiro sidaad nooga ogolaatay aad baan kugu mahadcelinaynaa su'aasha ugu horeysa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal horta inaad inoo sharaxdo ujeedooyinka halkan aad u timid iyo waxyaabihii suurtagalay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sayidina maxamed ibn cabdillah wa calaa aalihi wa sahbihi wasallam ajmaciin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ayuha alxaadiruun wa ayuha almushaahiduuna lana min kulli makaan بعد تحية العذراء هل كان حاول الحمد لله إن زيارة قيب قالوا زيارة مشايخ ذا قال أهان حلي كان موسم كان حال زيارته شيخنا الشيخ عبد الرحمن علي والشيخ المشايخ جميعا ها قطب الأقطاب في زمنه ها غوث هذا الوقت ها في عصره شيخنا ها الحمد لله إليكم هذه أكملتي إن لكل ما أنقو oo sheekha aan waliba dariiqada aan ka qaaday awraadda taasbaan ilaahay mahadiis ugu mahad celinaya marka sheekhaas oo waliba kutuban aan ka dhigsanay ziyaaradiisa aan u nimaday iyo sidoo kale tood sheekhayni Sheekh Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan oo curadkii sheekhayna Sheekh Cabdiraxmaan Cali ahaa oo asuguna nin ahaa ahad ilaahay ku karaameeyay cilmi iyo cirfaan iyo cibaado oo waafajiyay oo caalim ahaa oo caabid ahaa oo ilaahi weynaa aan ku mahadinayno inaan talaamidiisa kamid haynan wax badan sheekha aan ka dhigansano aad kutubo u fara badan aan ka dhigansanay alxamdulillaah labadaas sheekh ziyaaradooda inaan ka qayb galaan u miday alxamdulillaah waxaan oo dhamaaday ziyaaradii sheekhina Sheekh Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan oo wada bisha 10keedii maalintii axadda galabtii banaanbixi ahaa habeenkii isniintana dhafarkii oo ahaa haddana waxaan u joognaa oo maanta ay tahay banaanbixi ziyaaradii sheekhina Sheekh Cabdiraxmaan Cali ilaa iswaafajiyay caawan waa dhafarkii dhammaan muslimiinta ka soo qayb gashay waxaan Allah ugu baryayaa inuu wadaadadka ay u yimideen oo adduun aakhira ah dhamaantood in ilaahay siiyo aan ka baryayaa sidoo kale tood halkani waa hoyga cilmiga waa hoygii mashaayikhda waxa jooga awliya badan ku duugan waxa ku duugan sheekhul mashaayikh jamiican sheekhna Sheekh Abubakar Maxdaar ayaa ku duugan oo soo ziyaaran alxamdulillaah halka hadii la yimaado aan ka barna sheekhana Sheekh Cabdiraxmaan Cali hadii sheekh asaga salaam intaan la fadhiisan wuxuu dhihi jiray on ka qoxaa lacabin sheekh Abubakar horta hal aado sidoo kale tood waxa kale asuguna halkan ku duugan sheekhi oo sirma qabal dhihi jiray oo ahaa tilmiidkii sheekhina Sheekh Abubakar Maxdaar asagana falilahi alxamdu awliya badan ku duugan sheekhina sheekhiisa ayaa ku duugan Sheekh Maxamed Sheekh Xuseen marka ragaas iyo kuwa nool intaba inaan ziyaaranayno u nimiday alxamdulillaah waxa kale intaas ka sii dheer in dad axbaaba meelo kala duwan ka yimid qaar oo Nairobi ka yimid qaar oo ka yimid magaalada Muqdisho gobolada qaar dhaxayo dhamaan ay wada joogaan marka kulankaasna liqaa ikhwaan saawul qufana la yiraayo idan ilaah baa ugu mahad celinayna marka in ilaahay nala kulmiyay qabulna alagna jihina waayahay Sheekh Cabdiqaadir Soomow dad badan ay isweydiinaya hadda Sheekh Cabdiqaadir Soomow maxaa xila uu hayaa aniga hadda in muddo ah waxaan ahaa culimada afkooda ayaan ku hadlayay gaar ahaan suufiyo ahlu sunna jamaa golaha guud ee culimada Soomaaliyeed oo sheekhina Sheekh Maxadiga oo ka yahay waayilka oo siga uu yahay martay muassasinta madaxa uu yahay golaha fulintana Sheekh Maxamed Sheekh Cabdulbaari oo gudoomiye ka yahay anigu golaha san afayeen u hay xilka anigu aan haay waa kaas majmaci iyo arimihiisi xaq ku dambeeyay مجمع الشيخ محمد شعب علماء سويمدين وهو قامين الله نحرسته الشيخ محمد مارتي معلم أيا سمين علماء دي مشرب كاس إخواني هذا أيا أنت بدن كوهرتي هذا محمد عكاش يوسف على عنته ويا حرك كلام روينا كويدي دوان وذا لقوا مجا والشيخ عناد وحاول الشيء ونكاد البضي إنه أديك كل الضوضاء ومناظرة وكل جلو marka arintaas wax wara kama aad soo gudbin maxaad kaga jawaabaysaa arintaas subhanallah aniga kulli horta ninkaas oo ina aanooda hadaladiisa waa arkay mana aan u jawaabin saa sheegtay sax waaye
mana rabo hadda lafteeda inaan u jawaabo sababaha soo socda awgood qofku waxaa loo jawaabaa markuu qof cilmi ka hadlaayo markii qof aan cilmigii aqoontii cilmiga aan nasiib u yeelan oo caamo ah xagga caqligane xoogay nuqsaan ay uga jirto hadalkiisaba aad ka dareemayso qof marka oo caami ah oo haddana wax caqligoo leeya ayna jirin oo diinta aqoon barteed aan ku lahaynin ee dhaha aniga halayla doodo waxaa kugu filan asiga waxaa ugu filan inta uu isu geysanayo sababta oo ah dad muslimiin ah oo xufaadu haadil umma ah oo adduunyada meelo kala duwan ku nool uusan la zimantimin oo ku ziman uusan ahaynin oo caalimiin ah oo maalan ka soo qaad maaturidiyo iyo ashcari labadaasoo badanaa carabka ku dhiftaa iyo ahlu dariiqa dee haa lahaayeen qaadiriyo dee haa lahaayeen maartay raxmaaniyo haddii haa lahayd tiijaaniyo haddii samaaniyo haa lahaayeen dhammaan ashcariyoo dhan maaturidiyoo dhan caalamka meesha uga nool yihiin waa garan kartaa marka qof geeska afrika ku nool oo aqoon diineed lahayn ee raggii waaweynaa xufaadda ahaa oo ka mid lahaa imaamu nawawi oo ka mid ahaa raggii noocaas ahaa maanta duraaya ee weliba ku gaalnimo xugminaya culamadii islaamka ku gaalnimo xugminaya dhammaantood ku gaalnimo xugminaya wuxuuna ogeyn waxa uu sheegayo inuu xugun ridaa in kale kalama heliyo warkaas kiisaa haddaasi qofna qaali ka marigin maxkamana qof ka marigane laakiin haddii daahirkiisa la fiiriyo wuxuu dadkii muslimiinta ahaa oona lazimin tamin xataa gaalada bartaya lees amray in laga reebtoomo dadka amwaadooda ee dad muslimiina xufaadu ah haadil umma ah in martaya oonsan lazimin tamin iyo kuwii hadda zimikan jooga asigoo aan habay yaraatee wax uga bilaaban diinta xagga aqoonta aysan jirin asigoo aan aaminsanaynin inuu dhimirkiisu taam yahay asagoo caqli batiis aan lahaynin intaas maadaama ay u kulansan tahay wuxuu mudan yahay oo kaliya waxaa la yidhaha jawaabu laxmaq assukuut waayahay ma u jawaabayno ninka kaasi waa intaa marka laakiin sooma mudnayn inaad la hadashaan sheekh cabdiqaadirow oo aad kala doodaan oo aad kala munaadarootaan oo aad ku qancisaan waxyaaba aad haysaan intaad dhihi lahayd annagu wax caddeyn uma hayno inuu xagga dhimirka uu si ka yahay laakiin sooma mudnayn arrintaas wuxuu yidhi junuunuka majnuunun walastu biwaajidin dabiiban yudaawi junuuna majnuunin aniga wuxuu yidhi jinniga ku hawaa walan ma helaya dhakhtar marka jinni asugu waalan daaweynaya marka ma heli karno qof oo caamo ah ee dhahaaya maanta ayaa rabaa inuu culamada la doodo asaguna caamo ah marka wuxuu yidhi imaamu shaafici raximahullah raxmat alabraar wuxuu yidhi maa jaadalanii maa naadaranii caalimun ilaa halabtu wamaa naadaranii jaahilun ilaa halabanii lama aanan doodin nin caalima ilaa waa ka adkaadaa nin oo jaahila oo hadda aqoon badan aan lahayne lama aanan doodin ilaa waa iga qaalib noqdo maxaa yeele wuxuuna maba kala yaqaanba waaba qof axad min annaas oo hadda oo aan ku qiyaasi karo aqoontiis muu ka joogo tawxiidka markuu ku dhawaaqi tago waxaad arkaysaa inuu laxaniynaayo qof tawxiidka fasirkiisa ka soko ku dhawaaqidiisa laxaniyeynaayo marka ma ahayn inaan la jawaabno inaan u jawaabno haddii shaqaawa maarta ayna u qadaraynin goorba wax soo baranaya waxaan leenahay talada nasiixada aan sii haynaa waxay tahay kaliya diinta baro su-aasha ugu dambaysa ayaan jeclahay inaan ku weydiiyo anagoo kaaga mahadcelinaya fursaddan qaaliga ayaadna siisay dad badan baa kugu dhaliilsan sheekh cabdiqaadirow in sheekhana dhankan aanu xigin mar inta iska dhexaad yahay mar halkan uu la shaqeeya mar qolada uu la shaqeeyo bal adiga si dhaba bal isku kaa naqeex xaggeed si toosa uga tirsan tahay adigu qof axad oo muslima ah oo ahlu tawxiidana waxaan isba sheegtaa allah naga dhigay inaan nahay dad ahlu sunna waljamaaca caqiidadeedu waa ashcariya kutubta maaturidiyadana wax badana noola akhriyey waxba iskuma khilaafsanaba haddii intaas laga yimaado xagga mashrabkayga falilaahi alxamdu sheekh hadda aan ziyaaranayno oo sheekh cabdiraxmaan caliya sheekhayga ah gacantaydaan uga qaatay midigta ah dariiqati qootil cadam sheekh cabdiqaadir jilaani
لما dalkeena soo gaartay silki waxa waa dariiqatu zayliya iyo dariiqatu awaysiya lamadaba waa ka qaaday khilaafadan waxaan ka qaaday oo lamadaba waa sheekheena Shaama Gaballe dhinacaas waxaan ahay xagga nin qaadiri ah sidoo kale tood waxaan la kulmay dad culmo ah oo waaweyn oo dariiqada Axmadiyada arkaanteeda ah oo kamid yihiin awlaadi Sayyidina Ahmed bin Idris oo halkaan ugu soo booqdeen idan iyo ijaasa waa ka qaatay sheekhu inta noogu imaanin waxaan la kulmay mashaayikhda idanka u qabtay sida Sheekh Ismaaciil sheekheena Sheekh Ismaaciil Sheekh Maxamuud Sheekh Muuse Cigalle oo dariiqada Axmadiyada iyo idmay idoo waliba xadaradaas oo fadhiyo alxamdulillah hadda shalay waa isla joognay Sheekh Yusuf Sheekh Shariifow oo dariiqada Axmadiyada waxaan rabaa inaan Sheekh Soomo u dhiibo ka waran soo u dhiib magaasaan haan anagu sheekhay Shaama Gaballe maalinku u siyaasad silsilada waxaan rabaa inaan dhamaan dariiqada dhamaantood oo khidmaysa ayaan ku khalifay dariiqada Axmadiyada ku khalifay zaylcida aweysadna silsiladooran ku siiyay maadaama labada sheekhu isku bixinayay marka haddaan iscadeeyo nin ahlu dariiqaha nahay oo masharafkiisu uu qaadiri oo yahay midda kale dadku inay kala yaqaaniin la rabaa Sayyidina Sheekh Abdulqaadir Jilaani waa awlaadu rasuul waa xasani hooyadiisna waa xuseeni Sayyidina Sheekh Ahmed bin Idris waa awlaadu rasuul nabiga kaleey salaatu wasalaam awlaadiisa waa xasani xagga nasabka abaada xagga hooyadana waa xuseeni labaduba saas yihiin labadii nasabkooda wuxuu kulmiyaa Sayyid Xasan iyo Sayyid Xuseen saas daraadeed bartay waxa waaye dariiqada oo wax ay kala tama jiraan aqoon la dad kala geynaysa marka Sayyidina الشيخ عبد القادر الجيلاني قوث الأعظم مارتي أهو يا سيدنا محمد بن تسولي قطب لا كالأغضاب ووث لا كالأغواثي أو مارتي النبي عليه الصلاة والسلام توحيد كلمة استغفار كبير يا صلاة الله العظيم يا توحيد دير أسوق أقول لك بخدر كبعدي إن لا كالأغاضو لا كالأجيو الشيخ أنا هرت كسوهر مري أو اعتماد كيجو هو جوني لكن midda kale tood in laga bixi ma jirto waxa soo horeeyay xagga tacaamulka dunawiga soo horeeyay dalka ma joognaa nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu joogo Madiinatul Munawwara wuxuu ahdi u sameeyay yahuudi iyo ansaarti iyo muhaajiriinti iyo mushrikul arab wixii magaala joogay ay ahdi u sameeyay nabiga kaleey salaatu wasalaam saadaraadina dad muslimiin oo ahlu tawxiid dad Soomaali boqolkiiba boqol muslim waaye waxa jira si dadka loo badbaadiyo anako masharabkii ahlu dariiqa midalayna in dad kale tood aan wax isku darsanay oo ku saabsan dalkan umuurihiisa gaarka ah oo sida nabadgelyadiisa sida dib u heshiisiintiisa sida maartay ummadda la soo dhaweey lahaa laakiin qofba mashrab ay leedahay marka hadii aad aragtid aniga oo isla fadhaan oo rag oo bartay hay'adda culimada ka tirsan ama rag majmac ka tirsan iyo rag aniga iyo golahayna guud isla fadhaan hada aragtaan dadku waa inay ka bislaadaan ay ogaadaan adina adigu caqiidadaadu idoo ku goonida ah dalkan in la wada leeyahay wixii lagu wada leeyahay oo diinta kor imaahayna lagu wada jiri karo laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin inaan wax la isku darsan karin oo la kala fikir duwan yahay oo ictiqaadka la kala duwan yahay marka adii maxaa ku muuqata in wax la isku darsan karo oo hal meel la isku wada iman karo waxyaabo badan wixii aanu ku isku waafaqsanahay oo ay kamid tahay kelimada tawxiidka oo dadka inaan la gaalaysiinay oo ay kamid tahay in dadka la wada heshiisiyo ay kamid tahay dalkan dawladdiisa in la ilaaliyo oo dalka in la wada difaaco waxyaabaha la isku darsan karo waxyaabahaas waxaan miisanahay in dalka dadka ka dhaxeeya xataa haddii dalkan dad oo gaala ay joog lahayn ilaah baan kama galnama joogaan oo dalka wax kale waa in la wada macaamila waajib haleed saa daraadeeda anigu waxaan qabnaa wixii la soo dhaweey karo in la soo dhaweeyo laakiin marnaba caqiidadayna gorgorta kuma jirto waayahay waxaan rabaa inaan su-aasha ugu dambaysa kaaga tago waxaad ii sheegtaa waxaa jira warar xan ah oo soo baxay oo sheegaya inaad isku dhacdeen adiga majmac culimada oo Sheekh Bashiir Axmed Salaad uu hogaaminayo arintii Sheekh Umul iskula dhacdeen warkaas maxaa ka jira horta dadka mid ugu horeyso oo iskaga qaldan waxaan kamid ah oo adiga xataa cawka ka qaldan majmaci iyo Sheekh Bashiir iyo Sheekh Soomo wadan ana kala helin Sheekh Bashiir waa masharafkiisu waa salafi hay'adda culimada madaxkaya majmacana waxa iska leh saa hore in ku sheegay waxa madax ka hashay Maxamed Xasan Maxamed Xasan masharafkiisuna waa nin oo ahlu dariiqana waa ahaa haddana wuxuu ahaa nin oo fikirka ikhwaaniga oo ahaa Sheekh Cali Cataare booskiisa jooga marka majmaca iyo golaha anu amasalo isku marcil laakiin waxa xoogay isku aragtay ahaa weynay hay'adda culimada Sheekh Bashiir hogaaminay
iyo sheekh cali wajiis oo dhinaca labadaas oo mashrabkooda oo mashrab salafi u yahay iyo aniga waxaan isku qabanay waa jirtaa inaan isqabanay oo ku kala aragti duwanaanay maxamed cabdi umal inaan ku kala aragti duwanaanay wax mushkilaha gooni ah aniga uma arko maxaa yeelay umal waxaan ku haystaa wax iska cad oo waadixa oo marnaba aan gorgortan ka galaynin oo dadka in la gaalaysiiyo aheeday oo dadka in la laa aheeday oo nabiga calayhi salaatu wasalaam in daat sharafkiisa daatiisa naqnisa in loo nisbeeyay ay taa ilaahan ka magangalnay aheed oo iska muuqata oo mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka dhigaaya oo yiri maartay waxay samaynayaan ma yaqaaniin waa shirkiyaad oo yiri oo mawlidka laftiisa bidca oo ku tilmaamay nin noocaas oo dadka Soomaali isku diray oo dad badan oo madaxiisa ku leeday nin noocaas in aragti diinad ay ku difaacaan aniga aad aan soo horjeeday ila aan ku soo horjeedaa shacabka Soomaaliyeed maxaa ugu baaqaysaa ugu dambeyntii fursadan aan ku siinay maxaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa horta koow dadku inay walaaloobaan dad walaal ay ahaadaan oo dalkooda diintooda u difaacdaan cadowgooda iska qabsadaan iska celiyaan iyo in culumadii kullu shay jecelaas waa inay goostan bad ka dhigtaan martay ahlus sunna wal jamaa inay ku dheganaadaan aqeedadaas toosan in mashaayixda ay raacaan in ay wixii khilaafaadkan oo hadda iska yimid iskana bacaya oo dalkan shalay maanta ka hor martay dadkan lixdeemeedii soo galo ilaa maanta jooga khilaafkooda inta iska dhigaan oo dhiiga badan oo ku daatay dadkii inay sida hadda warshiq loo joogo kala dad isku yimaadeen ay tawfiiqaan ay mid ay haadaan ay aad diinta u bartaan oo aad ay diinta u haystaan oo mashaayixdooda ay ku xiraadaan oo dhexdooda ay walaaloobaan oo dalkooda ay wada difaacdaan oo dagaalkii qabaliga laga tago aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa waqtigiisa qaaliga ah ee uu nasiiyey sheekh cabdiqaadir soomow afhayeenka golaha guud ee culimada Soomaaliyeed waxaanu joognaa degmada Warsheeq aad iyo aad ayaad u mahadsantahay sheekh kaaga mahad aad u mahadsantahay aad